Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo si kastaba aad noola socotaan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa 28 Maarso 2026 qodobada tabinteena fiidnimo aad ku daawan doontiin waxaa ka mid ah dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ee Iran maxaa ka socda maalintii 29aad ee weerarada. Falanqeyn kooban ayaan ku eegi doonaa. Dhanka kale Xuutiyiinta Yemen oo gantaalo ku weeraray Israa'iil iyadoo weerarada Iran ay sii socdaan. Maxay tahay khasaaraha ka dhashay weerarada Xuutiyiinta ay ku qaadeen Israa'iil? Faahfaahin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa. Geesta kale Ukraine iyo Imaaraadka Carabta oo ku heshiiyay iskaashi dhinaca amniga iyo difaaca. Qodobadaas iyo qodobadii kale aan ugu soo kordho ayaan ku eegi doonaa daqiiqadaha soo socda, balse intaan u guda galin marka hore muuqaalka like noo saar. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee muuqaalkan ku soo gaaro fadlan like noo saar, channelkan subscribe noo dheh oo gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan xogihii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay caalamka. Magacaygu waa Hashim Aadam, ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Haddii aan ku horeyno dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ee Iran maxaa ka socda maalintii 29aad ee weerarada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aad ugu niyad jabay jawaabta gaabiska ah ee ururka NATO, isagoo ku eedeeyay isbahaysiga inuu ku guuldareystay inuu taageero Mareykanka iyo Israa'iil ee dagaalka ay kula jiraan Iran. Inkastoo Mareykanka sanado badan ku bixiyay kharashaad militari oo aad u badan si uu u difaaco xulfadiisa, dhanka kale Iran ayaa ka digtay in qiimo culus la bixin doono kadib weeraro ay Israa'iil ku qaaday xarumo nuclear iyo warshado muhiim ah. Tehran waxay ku eedeysay Mareykanka iyo Israa'iil in ay dab la ciyaarayaan iyagoo bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta. Si kastaba ha ahaatee, Iran waxa ay sheegtay in aan wax daadasho shucaac ah oo radiation aan ka dhicin labada xarumood ee nuclearka ee la weeraray. Digniinahan ayaa imaanaya iyadoo xiisadda iyo dagaalka sii xoogeysanaya bariga dhexe, taas oo sii kordhisay cabsi laga qabo in dagaalka uu noqdo mid ballaaran oo gobolka oo dhan ku fida. Haddaba maxaa laga ogyahay gudaha Iran? Israa'iil oo garaacday Tehran. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay subaxnimadii maanta ay qaadeen weeraro ay ku beegsadeen waxa ay ku tilmaameen bartilmaameedyo la xiriira nidaamka dowladda Iran oo ku yaala magaalada Tehran. Rajada wadahadallo Iran lala yeesho toddobaadkan. Ergeyga Mareykanka Steve Witkoff ayaa sheegay in uu filayo in toddobaadkan la qabto kulamo lala yeesho Iran, isagoo sugaya jawaabta Tehran ka bixin doonto qorshe nabadeed oo ka kooban 15 qodob. Iran oo ballan qaaday qiimo culus. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay in Tehran ay qaali ka dhigi doonto dambiyada Israa'iil kadib weeraro lagu qaaday xarumo nuclear ah iyo laba ka mid ah warshadaha birta ee ugu weyn dalka Iran. Iran oo dareemaysa in lagu khasbayo wadahadal. Wariye ka tirsan Al Jazeera Mohammed Val oo ka waramaya Tehran ayaa sheegay in dad badan oo reer Iiraani ah ay aaminsan yihiin in cadaadis militari lagu riixayo miiska wadahadalka, iyagoo leh dareen ah in Mareykanka uu duqeymo ku riixayo wadahadal. Sida uu sheegay, halkii ay ku tiirsanaan lahaayeen ballanqaadyo Mareykan ama Israa'iil ah, Iran waxay ku tiirsan tahay gantaaladeeda, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo go'aanka askarteeda. Ruushka oo laga yaabo inuu caawiyo ama caawinayo Iran. Wariye Mansour Mirvali ayaa sheegay in Iran ay u badan tahay in macluumaad sirdoon oo ku saabsan ciidamada Mareykanka ka helayso Ruushka, gaar ahaan nidaamka dayax-gacmeedka sirdoonka ee loo yaqaano Layana. Trump oo NATO dhaliilay. Trump ayaa sheegay in xulafada NATO aysan garab istaagin Mareykanka markii laga codsaday in ay ka caawiyaan ilaalinta marinka maraakiibta Strait of Hormuz, wuxuuna yiri: mar walba waan sheegayay NATO waa shaweel waraaq ah. Mar walba Mareykanka ayaa caawiya NATO, laakiin iyagu weligoodna ma caawin doonaan. Kulamo suurtagal ah oo Pakistan ka dhaca. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in wadahadallo ay ka qayb qaadan karaan Pakistan, Sacuudi Carabiya iyo Masar laga yaabo in toddobaadkan ka dhacaan Pakistan, iyadoo Islamabadna ay dhexdhexaadinayso Iran iyo Mareykanka. Hay'adda kormeerka nuclearka ee caalamiga International Atomic Energy Agency ayaa ku baaqday isxakameyn degdeg ah kadib markii Israa'iil ay weerartay laba xarumood oo nuclear ah oo Iran ku yaala oo ay ku jirto warshad lagu farsameeyo uraniumka. Isbedel dowladeed Iran ma dhici doonaa.
Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz ayaa sheegay in dadaalkani uu u badan yahay in uu keeno isbedel nidaam dawladeed. Wuxuuna yiri haddii taasi ay tahay ujeedada dagaalkan uma malaynayo in la gaari doono. Taariikh ahaan arrimahan badankooda si xun ayay ku dhamaadeen. Wuxuu tusaale u soo qaatay dagaalkii Afghanistan. Gobolka Khaliijkana Sacuudi Carabiya oo gantaal soo riday. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in ay qabatay oo burburisay ama ay burburiyeen gantaalo laga soo tuuray caasimadda Riyadh. Sidoo kale ugu yaraan 12 askari oo Mareykan ah ayaa ku dhaawacmay weerar ay Iiraan ku qaaday saldhig military oo ku yaala dalkaasi, sida ay sheegeen wakaaladda wararka Reuters iyo AP. Dhanka iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Wasaaradda Difaaca Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in nidaamyada difaaca cirka iyo diyaaradaha dagaalka ay soo rideen gantaalo iyo diyaarado drone ah oo Iiraan laga soo riday. Kuwait, dadka ku nool Kuwait ayaa sheegay in hadda ay la qabsadeen dhawaaqyada digniinta ee habeenkii oo dhan, inkastoo habeenadii ugu dambeeyay ay yara degnaayeen. Gudaha Mareykanka oo doonayo in uu dagaalku ku soo afjaro toddobaadyo. Xogayaha arrimaha dibadda Mark Rubio ayaa sheegay in Washington ay rajaynayso in ujeedooyinka dagaalka Iiraan lagu gaaro dhowr toddobaad gudahood, taas oo Iiraan ka dhigaysa mid daciif ah. Askarta Mareykanka ee dhaawacmay. Taliska dhexe ciidamada Mareykanka CENTCOM-ka ayaa sheegay in ka badan 300 oo askari Mareykan ah ay ku dhaawacmeen tan iyo markii dagaalka uu bilaabmay 28 Febraayo. Gudaha Israa'iilna weerar toos ah ayaa ka dhacay. Israa'iil ayaa weli wajahaysa gantaalo badan oo ka imaanaya jihooyin kala duwan. Iiraan ayaa gantaalo ku dhufatay waddo ganacsi oo mashquul badan oo ku taala Tel Aviv. 1 qof ayaa lagu dilay. Kooxaha gurmadka degdega ah Israa'iil ayaa sheegay in 1 nin lagu dilay Tel Aviv, 2 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen gantaal Iiraan ka soo tuurtay. Lubnaan, Yemen iyo Daanta Galbeed iyo Xuutiyiinta Yemen. Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa ka digtay in ay si toos ah dagaalka ugu biiri doonaan haddii weerarada Iiraan la sii wado ama dalal kale oo ku biiraan dagaalka. Kooxdan ayaa horey u weerartay maraakiibta badda cas xilli ay socdaan colaadda gobolka ka jira. Israa'iil oo ballaarisay dagaalka Lubnaan. Ciidamada Israa'iil ayaa galay magaalada Khiyam waxayna la dagaalameen Xisbullah meel u dhow Tyre ay kula dagaalameen, iyadoo Israa'iilna ay isku dayayso in ay sameyso aag amni ah ilaa ay webiga Litani River. Xisbullah ayaa sheegatay in ay weerartay taangiyo Israa'iil isla markaana ay rasaas ku furtay diyaarad dagaal oo dulmaraysay Beirut. Wariye Rob McBride ayaa sheegay in Israa'iil ay halista Xisbullah u adeegsanayso sabab ay ku ballaariso duulaanka koonfurta Lubnaan si ay u sameyso buffer zone ama aag difaac. Xisbullah ayaa sheegtay in 24 saac gudahood fulisay 82 weerar oo ka dhan ah ciidamada Israa'iil. Xuutiyiinta Yemen oo gantaalo ku weeraray Israa'iil iyadoo weerarada Iiraan ay sii socdaan. Kooxda Xuutiyiinta Yemen ay taageerto Iiraan ayaa maanta gantaalo ku weeraray Israa'iil, taas oo noqotay weeraradii ugu horeeyay tan iyo markii uu bilowday dagaalka Iiraan. Isla waqtigaasna xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio uu sheegay in Mareykanka uu filayo in howlgallada military lagu soo afjari doono toddobaadyo gudahooda. Kooxda Xuutiyiinta ayaa sheegtay in weeraradan ay sii socon doonaan ilaa iyo waxa ay ugu yeeraan gardarada ka socota dhammaan jihooyinka ay joogsato. Dhanka kale, Israa'iil ayaa sheegtay in ay soo riday gantaal laga soo tuuray Yemen. Dagaalkan oo ku bilowday weeraro ay Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaaday Iiraan 28 Febraayo ayaa hadda ku fiday guud ahaan Bariga Dhexe, wuxuuna sababay kumanaan dhimasho iyo qalqalgelintii ugu weyneed ee abid ku timaada sahayda tamarta dunida. Arrintan waxay si toos ah u taabatay dhaqaalaha caalamka iyadoo sare u qaaday cabsi laga qabo sicir barar sii kordha. Xuutiyiinta waxay awood u leeyihiin in ay bartilmaameedyo fog gaaraan. Xuutiyiinta waxay Jimcihii hore sheegeen in tallaabo ay qaadi doonaan haddii ay sii socoto waxa ay ku tilmaameen kordhinta weerarada lagu hayo Iiraan iyo waxa loo yaqaano isbahaysiga iska caabinta ee dagaalka ku lug leh. Kooxdan ayaa horey u muujisay in ay garaaci karto bartilmaameedyo aad u fog ama aad ugu fog Yemen, isla markaana ay qalqal gelin karto marinada maraakiibta ee ku wareegsan jasiiradda Carabta iyo Badda Cas. Taasi waxay horey u sameeyeen markii ay taageereen Hamas ee Gaza kadib weeraradii dhacay 7 Oktoobar 2023. Haddii Xuutiyiinta ay furaan jiho cusub oo dagaalka ah, bartilmaameedka ugu muuqda wuxuu noqon karaa Bab al-Mandab Strait ee ka baxsan xeebaha Yemen. Marinka waa meel aad muhiim u ah oo maraakiibtu ka gudbaan maadaama gacanta ku hayo isu socodka badda ee ku wajahan Suez Canal. Arrintan waxay imaanaysaa iyadoo Iiraan ay si wax ku ool ah u xanibtay marin kale ee aadka muhiimka u ah ee Strait of Hormuz.
Mareykanka oo rajaynayo in dagaalka uu dhamaado dhawaan. Isagoo hadlaya Jimcihii ka hor weerarka Xuutiyiinta, Mark Rubio ayaa sheegay in Washington ay ku socoto ama ay ka horeyso jadwalka dagaalka, isla markaana ay rajaynayso in howlgallada militari lagu soo afjaro toddobaadyo ee aan noqonin bilaha soo aadan. Khilaaf ka dhex muuqda Mareykanka iyo xulafadiisa dagaalka ayaa farqi weyn ka dhex abuuray Mareykanka iyo xulafadiisa dhaqanka, kuwaas oo badankooda ka fogaaday in ay si toos ah uga qayb qaataan dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in taageero la'aan ay saameyn ku yeelan karto mustaqbalka ururka NATO. Isagoo ka hadlayay madal maalgashi oo ka dhacday magaalada Miami, Trump wuxuu yiri, mar walba anaga ayaa u taagnaan jirnay iyaga, laakiin hadda marka la eego ficiladooda, malaha anaga qasab naguma aha. Sax miya? Maxaan u garab istaagi lahayn haddii iyagu ay nala garab istaagi waayaan, ayuu yiri. Ururka NATO wuxuu ku dhisan yahay heshiis sheegaya in weerar lagu qaado hal dal uu leeyahay weerar lagu qaado dhammaan xubnaha kale, taas oo ku waajibanaysa in ay isdifaacaan. Ciidamo dheeraad ah oo la geeyay gobolka. Rubio ayaa sheegay in Mareykanka uu gaari karo ujeedooyinkiisa militari xitaa haddii aan ciidamo lugta ah loo dirin dagaalka. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu qiray in ciidamo gaar ah loo dirayo gobolka si madaxweynaha loo siiyo ikhtiyaaro badan oo ku maareeyo xaaladaha soo bixi kara. Ugu dambeyntiina, Ukraine iyo Imaaraadka Carabta oo ku heshiiyay iskaashi dhinaca amniga iyo difaaca ah. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Sabtidii maanta ah sheegay in kulan uu la yeeshay madaxweynaha Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed Al Nahyan, isla markaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in ay iskaashi ka yeeshaan dhinacyada amniga iyo difaaca. Zelensky ayaa fariin uu ku daawacay barnaamijka Telegram uu ku yiri, kooxahayga shaqo ayaan dhammaystiri doonaa faahfaahinta heshiiska. Warbaahinta rasmi ee Imaaraadka News Agency ayaa iyaduna sheegtay in wadahadallada labada hogaamiye ay sidoo kale taabteen xoojinta amniga caalamiga ah, badqabka isu socodka maraakiibta caalamiga ah iyo saameynta arrimaha ay ku leeyihiin dhaqaalaha adduunka. Madaxweyne Zelensky ayaa Khamiistii tagay dalka Sacuudi Carabiya, halkaas oo wasaaradda difaaca Sacuudi Carabiya ay heshiis iskaashi dhinaca difaaca la saxiixdeen wasaaradda difaaca Ukraine. Sidoo kale hogaamiyaha Ukraine ayaa gaaray Qatar, isagoo sii wada safaro diblomaasiyadeed oo ku marayo dalalka Khaliijka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa Jimcihii sheegay in magaalada Kiev ay ku dhowdahay in ay dhamaystirto heshiisyo amni oo dhowr ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiisyo lala galayo Imaaraadka iyo Qatar si looga hortago weerarada Iran ay ka fulin karto. Maxay kula tahay adiga? Fikirka qaybta hoose ee faallooyinka noogula wadaag, muuqaalka like noo saar oo la wadaag asxaabtaada. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.